Deemanka Afrika dal ay dhidibada u taageen adoon la xoreeyay dal muddo dheer cagaha kula jiray dagaal sokeeye oo aan waxba la isku reeban. Sierra Leone waa wadan ku yaala galbeedka Afrika wuxuuna xuduud la leeyahay dalalka Guinea iyo Liberia waxaana dhanka galbeedka ka tirsan badweynta Atlantic wuxuuna leeyahay muuqaalo kala duwan oo ay ka mid yihiin xeebaha, dooxooyinka, buuraha dhaadheer iyo dhul beeraha ku wacan. dhowr jasiiradood ayuu dalkan leeyahay waxaana ugu caansan jasiiradda Bans oo mar ahay saldhig laga dhoofiyo dadkii la adoonsanayay. Kumanaan Afrikaan ah ayaa laga dhoofiyay oo adoon ahaan loo geeyay Amerika. Sierra Leone waxay leedahay magaalooyin waaweyn oo kala duwan kuwaas oo muhiim u ah dhaqaalaha, siyaasadda iyo dhaqanka dalkan. Magaalada Freetown waa caasimadda dalka waxaana la aasaasay 1792 markaasoo la dejiyay dadkii la adoonsanayay ee la xoreeyay. waa magaalo xeebeed ku taala galbeedka dalka lehna mid ka mid ah dekedaha ugu waaweyn galbeedka Afrika. waa halka laga helo xafiisyada dawladda iyo xarumaha siyaasadeed ee dalka. waxaa sidoo kale laga helaa xeebaha caanka ah ee dalka sida Lomé iyo Toke. magaalada Po iyaduna waa magaalo weyn oo dhacda dalkan waana midda labaad ee ugu weyn dalka. waxay caan ku tahay dhanka waxbarashada iyo tacbashada beeraha. magaalada saddexaad iyaduna waxaa lagu magacaabaa Kenema waxayna caan ku tahay dhanka ka ganacsiga deemanka. ka hor gumaysiga dhulka Sierra Leone waxaa degenaayeen qabiilo Afrikaan ah. 1462 Boortaqiiska ayaa yimid wuxuuna siiyay magaca Sierra Leone oo macnihiisu yahay buraleyda libaaxyada. qarnigii 17aad ilaa qarnigii 18aad xeebaha dalkan waxaa loo adeegsanayay ganacsiga adoonsiga. dad badan ayaana laga dhoofiyay kuwaas oo loo iibgeeyay Amerika. 1787 Ingiriiska wuxuu dhulkan keenay dad la xoreeyay oo ka soo laabtay Britain si ay u degaan dhul xeebeedka Sierra Leone waxayna aasaaseen magaalooyin yaryar sida magaalada Freetown oo maanta ah caasimadda dalka. 1808 Sierra Leone waxaa damaaciyay gumaystigii Ingiriiska isagoona la wareegay Freetown. 1896 Ingiriisku wuxuu si buuxda u qabsaday Sierra Leone. ugu dambeynna dalkan wuxuu Ingiriiska ka xoroobay 27 Abriil 1961. Milton Margai ayaana noqday hogaamiyihii ugu horeeyay ee dalkan uu yeesho kadib xorriyadda. xornimada kadib dalkan wuxuu wajahay caqabado ku saabsan qaab dhismeedka dawladeed. xukuumadda Milton waxay wajahday cadaadis siyaasadeed iyo dhaqaale. si kastaba Milton wuxuu geeriyooday 1964 waxaana hoggaanka dalka la wareegay Siaka Stevens oo ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee dalka. Siaka wuxuu isku dayay inuu sii adkeeyo xukunkiisa wuxuuna sameeyay isbeddello siyaasadeed oo dalka ka dhigay mid si weyn uga madax bannaan Ingiriiska. 1967 dagaal ayaa ka dhacay dalka waxaana xukunka qabsadeen militariga. laakiin Siaka Stevens wuxuu ku guuleystay markii dambe inuu xukunka dib u helo. 1971 Siaka wuxuu bedelay dastuurka si uu awood dheeri ah u helo wuxuuna hirgeliyay nidaamka keligii taliska isagoona joojiyay nidaamkii dimuqraadiyadda ee xisbiyada badan. wuxuuna ugu dambeyn xilka ka degay sanadkii 1985 kadibna waxaa dalka madaxweyne ka noqday John Craver Smart oo xilka hayay ilaa 1991. toddobaadyadii u dambeeyay ee uu xilka hayay madaxweynahan wuxuu dalka cagaha la galay dagaal sokeeye oo khasaare badan dhaliyay. dagaalka sokeeye ee Sierra Leone wuxuu socday 11 sano wuxuuna sababay burbur ba'an, dhimashada kumanaan qof iyo barakaca malaayiin dad ah. dagaalka ayaa yimid kadib markii uu curtay kacdoon ka dhan ah xukuumadda iyo muran ku saabsan kheyraadka gaar ahaan deemanka. 1991 koox hubeysan oo loo yaqaanay RUF ayaa weerar ku soo qaaday bariga Sierra Leone iyadoo taageero ka helaysa Charles Taylor oo markaas dagaal kula jiray dawladdii Liberia. Charles wuxuu markii dambe noqday gaar ahaan 1997 madaxweynaha Liberia wuxuuna meesha ka sii waday taageeradii uu siinayay kooxda dagaalka ka waday Sierra Leone. RUF waxay rabtay inay xukunka ka turto dawladda Sierra Leone waxayna ku eedeynaysay musuqmaasuq iyo cadaalad darro waxayna jabhaddan si xun ula dhaqantay shacabka iyadoo mahadooyin aan wali tirmin u geysatay dadka rayidka ah. 1999 waxaa la gaaray heshiis nabadeed oo lagu saxiixay magaalada Lomé ee caasimadda dalka Togo balse RUF waa ay jabisay heshiiska
sanadkii 2000 ayayna ciidamo ka kala socda Ingiriiska iyo qaramada midoobay farageliyeen arinka ayagoona bilaabay inay cadaadis saaraan falaagada RUF 2002 ayayna dawladda Sierra Leone ku dhawaaqday dhamaadka dagaalka waxaana la qabtay hogaamiyaashii RUF iyadoona madaxweynihii Liberia ee kooxda taageerayay ee Charles lagu qasbay inuu iscasilo sanadkii 2012 ayaana lagu xukumay 50 sano oo xabsi ah marka laga yimaado dagaalka sokeeye ee muddada ka aloosnaa Sierra Leone mar kale dalkan wuxuu wajahay xaalad dunida oo idil argagax gelisay Sierra Leone waxay ka mid ahayd dalalka uu sida weyn ugu faafay cudurka Ebola gaar ahaan 2014 ilaa 2016 markaas oo uu cudurkan indhaha caalamku hayay magaalada ugu weyn dalkan ee Freetown iyo deegaanada ku hareeraysan ayaana noqdeen meelo uu cudurka si weyn ugu baahay waxaana qiyaas ahaan uu cudurkan dalkan ku dilay dad gaaraya ilaa 14,000 oo ruux dhawaanahan dalkan waa mid aan saarneyn shaashadaha caalamka waxaana ka jirta siyaasad yara xasiloon waxaana tan iyo 2018 dalkan madaxweyne ka ah Julius Malema dalkan wuxuu wajahayaa cunto yaraan iyo saboolnimo baahsan dhaqaalaha Sierra Leone wuxuu ku tiirsan yahay dhowr ilood oo muhiim ah sida diamond-ka iyo macdanta kale sida dahabka dhanka kale wuxuu dhaqaalaha dalkan ku tiirsan yahay beeraha iyo kalluumaysiga waxaana lacagta dalkan loo yaqaanaa Leone calanka dalkan ee sida weyn u shabaha midka aan wada garanayno ee Puntland wuxuu ka kooban yahay ilaa 3 midab oo si jiif ah u nashqadaysan midabka cagaaran wuxuu u taagan yahay kheyraadka dalka ee tixan buuraleyda ilaa dhul beereedka midabka cadna isna wuxuu u taagan yahay midnimada iyo cadaaladda halka midabka buluuga uu u taagan yahay badda dalkan gaar ahaan halka ay dhacdo caasimadda dalka ee ah dekedda dabiiciga tirada dadka Sierra Leone qiyaastii waa 8.5 milyan marka la eegana kooxaha qowmiyadeed dalkan dadka la yiraahdo Mende ayaa ugu weyn ama ugu tiro badan waxayna ku badan yihiin koonfurta iyo bariga dalka shakhsiyaadka dunida laga garanayo ee asal ahaan ka soo jeeda dalkanna waxaa laga xusi karaa Idris Elba oo ah jilaa heesaa iyo DJ caan ah dalkan luqado badan ayaa lagaga hadlaa laakiin luqadda ugu muhiimsan waxaa lagu magacaabaa Creole waa luqad inta badan looga hadlo magaalooyinka waaweyn sida caasimadda waana luqad ka kooban erayo badan oo ay ka soo amaahatay luqadaha maxalliga iyo luqadda Ingiriiska oo ah luqadda rasmiga ah ee dalkan uu leeyahay waana Ingiriiska luqadda ay dawladdu adeegsato dhanka waxbarashadana loo isticmaalo ilaa 80% oo dadka dalkan ah waa muslimiin inta soo hartayna waa Kirishtaan iyo kuwa haysta diimo dhaqameed ay awoowayaashood ka dhaxleen dadka dalkan waxay si weyn u jecel yihiin bariiska oo ay laaba cunaan marka bariiska laga yimaadana cuntada labaad ee sida weyn u xiiseeyaan waa fufu oo ah cunto Afrikaan si weyn looga cuno dalal badan da'da dhexdhexaadka ah ee dadka dalkan waa 19 sano waxayna tani ka dhigaysaa dalkan inuu ka mid yahay dalalka dadka ugu da'da yar la saaxiibka ah waxaana dalkan si weyn loo guursadaa gabdhaha da'da yar laakiin sanadkii la soo dhaafay ayay dawladdu mamnuucday in la guursado gabdhaha da'doodu ka yar tahay 18 sano haddaba qofkii guursadaa gabar ka yar 18 sano ciqaabaha uu la kulmi karo waxaa ka mid ah 15 sano oo xabsi ah dalkan waxaa ka qabsoomaan dabaaldegyo u gaar ah haweenka sida isu soo baxa Bundo oo ah dabaaldeg dhaqameed muhiim u ah haweenka reer Mende waxayna ku soo bandhigaan fankooda ayagoona ugu dabaaldega dumarka la guday xilligaas